bismillaah maalmahan meel kasta oo dad isugu yimaado haddii ay ahaan lahayd online iyo haddii ay ahaan lahayd offline-ba waxaa taagan dood ku saabsan sheekha loo yaqaano sheekh shantaay. dadka qaar waxa ay ku doodayaan inuu qaldan yahay, dadka qaarna waxa ay ku doodayaan inuu saxan yahay. anigu waxa aan ka mid ahay dadka aadka u difaaca sheekh shantaay. haddaba halkan waxaan kusoo gudbinayaa 10 sababood oo aan ku taageersanahay sheekh shantaay. kow, shaqo nala ka rabay ayuu hayaa. in wanaagga la amro xumaantana la reebo waa shaqada qof kasta oo muslim ah. haddaba haddii aan anagu shaqadeenna ka gaabinay, nin kastoo qabanaya xaq uma laha in la taageero mooye in la mucaarado. labo, waa nin waaqica la socda. inta badan wadaadada hadda jira wax kasta ha sababaane lama socdaan waxyaabaha magaalada ka jira ama dadka muslimiinta dhexdooda. laakiin sheekh shantaay sida uu marar badan sheegaba waa nin og waxyaabaha jira ama socda. saddex, waqti aad loogu baahan yahay ayuu soo baxay. waxa uu soo baxay xilli fisqigii faraha ka sii baxayo, wadaadadiina ma garanayo ma cabsadeen mase wayse ku baraarugsaneen waxyaabaha socda aysan ka hadlayn inta badan. afar, teknolojiyada ayuu la socdaa. halka wadaado badan ay ku mashquulsan yihiin sidii 50 qof ay kitaab ugu laqbayn lahaayeen, sheekh shantaay asaga oo teknolojiyada adeegsanaya ayuu la hadlayaa malaayiin weliba u baahan hadalkiisa. shan, mujaamalo ma yaqaano. inta badan wadaadada badankood wax kasta ayaga oo ka dheregsan ayay afgobaadsadaan ama ay meelaha marmaraan. laakiin sheekh shantaay sida uu marar badan sheegaba asagu ma yaqaano hadallada lala gambado. lix, geesinimada. inta badan wadaadadu waxa ay ka cabsadaan in lagu leebal gareeyo ama loo bixiyo magacyo ama meelo la raaciyo. laakiin sheekh shantaay lama boqo waxa uu aaminsan yahay in ay xaqa yihiin. toddobo, dadka nacab dartood. markii aad u fiirsato dadka sheekha caaya ama dhaliila ama wax ka sheega, haddii aad u fiirsato waa dad intooda badan fari ku gudan tahay ama lagu yaqaano inay ku dhaqmaan waxyaabo ka dhan ah diinta islaamka. soomaalidu waxay tidhaahdaa farta iyo meesha bugta ayaa isog. 8, mawduucyo dihan ayuu ka hadlaa. inta badan sheekh shantaay waxa uu ka hadlaa mawduucyo aad loogu baahan yahay in laga hadlo ama dihan, sabab kastaba aan looga hadli waayey. wadaadada kale ma yaraystaan miyaysan muhiim u arkin mase waysaba ku baraarugsanayn. laakiin sheekh shantaay arrimaha uu ka hadlo waa arrimo muhiim ah oo wadaadada badankood inta badan aysan ka hadlin, sabab kastaba ha ahaatee. 9, isla weyni ma yaqaano. wadaado badan ayaga oo u jeeda qaladaadka ama qofka samaynayaba ayaysan ka hadlin, ayaga oo yasaya ama isdhahaya anigoo sheekh hebel ah oo nin weyn ah oo caan ah miyaan ka hadlaa canug hebel ama qof hebel ama waxaas anigu waa ka sareeyaa oo kale. laakiin sheekh shantaay qof kasta waa ku faac. 10, wadaadada kale wuu ka duwan yahay. wadaado badan markii la dhaliilo waxa ay dhahaan hilibka wadaadadu waa sun ama wadaadadu waxay qaadeen dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. in aad dhaliishana waxa ay la mid tahay inaad nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaliishay oo kale. laakiin aan isweydiinaya wadaadada hadda jira maxay qabtaan? nabigase calayhi salaatu wasalaam muxuu qaban jiray? wadaadada hadda jira kan ugu fiican dhowr qof ayuu kitaab u laqbeeyaa, kan ku xiga oo kaas dhama dadka ayuu su'aalaha uga jawaabaa marka ay soo weydiiyaan, oo ugu sii fiicana meelaha ay dadka lacagta la degan yihiin ayuu aadaa, safarar ku tagaa, muctamaraadna ku qabtaa. wadaado badan maanta ma sheegi karaan furuc ka mid a diinta ayaga oo ka baqaya in loogu yeero magacyo sida argagixiso, xagjir iyo waxyaabo la mid ah, ama loo diido fiisooyin ay ku aadi lahaayeen waddamo kale, amana loo dhibaateeyo ganacsiyadooda iyo hantiyadooda iyo dara ay kala yihiin waddamo kale. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu samayn jiray? asaga oo intaasoo dhan haya ayuu haddana dadka meel kasta inta uu tago wax ugu soo sheegi jiray. warqado ayuu u diri jiray dad madaxa. nabiga calayhi salaatu wasalaam xaakim ayuu ahaa, dadku wax kala xukmi jiray. dhakhtar ayuu ahaay, dadka ayuu daaweyn jiray. hogaamiye ayuu ahaay, dad ayuu hogaami jiray. wuu dagaalami jiray markii loo baahdo. haddaba si aan wadaadada loo dhaliilin waa inay ka soo baxaan wixii ay ka dhaxleen nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba sheekh shantaay asaga naftirkiisu ma dhammaystirna, laakiin wadaado badan oo hadda jira ayuu tillaabo dheer yahay oo shaqo muhiima oo loo baahan yahay oo aysan qaban ayuu hayaa. inkasta oo aan 10kaas arrimood dhan soo sheegay, haddana ma dhihin sheekh shantaay wuu wada saxan yahay. waa bini aadam, qalad wuu ku dhici karaa. mana aana dhihin wax kasta uu sheego waa ku taageersana. mana aana dhihin wadaadada dhan ayuu ka fiican yahay. sidoo kale yaan hadalkayga qalad loo fahmin.
waxyaabaha aan dhaliilay waa wadaaddo laakiin marnaba wax kama sheegin culummada sideedaba waa inaad ogaataa farqiga u dhexeeya caalim iyo wadaad haddaba adiga dhegaystow maxay kula tahay adigana sheekh intaay maxaad ka aaminsan tahay ma nin saxan ma nin qaldan ma nin labadaba isugu jira